bismillaahi raxmaani raxiim. qaybtan waxaan ku baranaynaa sida la isaga diiwaan geliyo website-ka guurnet oo dad badan ay aad markaasi ugu dhiban yihiin sida ay noo soo sheegayaan. website-kan sida la isaga diiwaan geliyo waan adkeynay, sababtuna waxay tahay inagoo ilaalinayna macluumaadka dadka naga diiwaan gashan. haddaba markii aad timaado website-ka qaybtiisaan markii aad timaado ee hore waxaa halkan ku qoran samayso account, iyada ayaad click siinaysaa. wuxuu ku keenayaa qaybtan. haddaba qaybtan si fiican isaga fiiri. username-ka waxaad gelinaysaa magac username aad ka dhigato oo ah magaca aad ku gelayso. tusaale ahaan magacu waa inuu noqdaa, waa inaysan ku jirin sida dhibic iyo waxyaabo la mid ah. waa inuu ahaadaa xarfo iyo nambaro kaliya ah, wax isbaysana waa inaysan u dhaxaynin. haddii tusaale ahaan user hore loo qaatay aad geliso, hoos ayuu kuugu sheegayaa userada kale ee bannaan mid ka mid ah. userada kale ee bannaan mid ka mid ah dooro. hoos u soco, halkan waxaad gelisaa emailka. si fiican u ogow, meeshani waa muhiim. haddii email sax ah aadan gelin, waxba ha isku daalinin, wax kuu shaqayn doona ma jiraan. sidaa darteed tartiib emailkaaga oo sax ah oo aad hubto halkaa u geli. waxaa ku xiga qaybta passwordka. passwordka halkan geli aad rabto inaad ku gasho mar walba guurnet. mar labaad isla passwordkii oo sidiisii ku celi. passwordkan kore aad meesha gelisay hadduu sax yahay waxaad ku ogaan doontaa calaamadaas ayaa soo fuulaysa habi ah oo qoslaysa. halkaana qaybta kale haddii ay labada password isleeyihiin waxaa ku ogaan doontaa meeshaan hoose ayaa calaamada tick soo fuuli doontaa. hoos u sii soco, meeshaan waxaad doorataa waxa aad tahay. haddaad furto waxaa ku qoran rag dumar, marka rag iyo dumar midkaa tahay midka dooro. waxaan raadinayaa qofka aad raadinayso, halkan ka dooro. xaaladaada meeshaan haddii aadan waxba gelin, ogow wax kuu sameeya ma lahan. sidaa darteed waxaad gelisaa sida waxaan ahay qof wanaagsan oo kale. waa inaad meeshaas wax gelisaa. magaalada aad joogto halkan ku qor. dhib ma leh haddii aadan aqoonin qaabka ay u qormayso. tusaale ahaan muqdisho oo kale isaga qor, ama af soomaali u qor ama english u qor. dalka aad joogto halkan ka dooro. wadamadii oo dhanaa ku jira. si fudud waxaad samayn kartaa mid ka mid a saas u dooro, kadibna xarafka uu ka bilowdo. sida soomaaliya haddaan rabo waxaan taabanayaa xarafka s, waxaa ii soo baxaya wax alla wixii s ah ayaan ku celcelinayaa ilaa aan soomaaliya ka helo. hoos u soco, dooro sanadka aad dhalatay, bisha aad dhalatay iyo maalinta ay ahayd. halkan waxaa ka doorataa doob miyaa tahay, xaasla miyaa tahay, garoob miyaa tahay, gabar miyaa tahay. wax alla wixii aad tahay halkaa ka dooro. hoos waxaad doorataa shaqada. arday ayaan ahay, shaqaale ayaan ahay, howlgab ayaan ahay, ganacsade ayaan ahay. wixii aad tahay halkaas kasii dooro. dhaqaalaha kusoo gala halkan ka dooro. waxbarashadaada haddii college, jaamacad, wixii aad tahay ayadana halkaa ka dooro. shahaadada aad haysato ama dugsi sare. qaybtan haddii aad sawir rabto ayaad sawir kasoo qaadan kartaa. u dhibta waa qaybtan. meeshaan aad ujeedaan boxkan aad ujeedaan dhexdiisaas waxaa ku qoran sida idiin muuqata dhowr xaraf oo nambaro ah. nambaradaas ayaa la rabaa meeshaas bannaan in la geliyo. tusaale ahaan 11215. marka lambaradaas meesha ku jira mar walbana way isbedelayaan. marka haddii ay lambarada ay kugu noqdaan kuwo adag oo aad fahmi karin, meeshaas yarta ah ayaad click siinaysaa, refresh ayay ku samaynaysaa. lambaro kalaa soo baxay way isbedeleen. muxuu noqday kan soo baxay 166
5. marka sidaas ayaa taasna waa muhiim haddii aad mid qalado ama aadan gelin xarfahaas meeshaan wax ku shaqeynaya malahan ayadana. qaybta u dambaysa qoraalka halkan ku jira waa qoraalka ah macnaha sida aan u shaqeyno iyo waxa aad website-kan ka helayso iyo xeerarka website-ka si fiican isaga akhri haddaad rabto, kadibna waa inaad meeshaas tig saartaa taasoo ka dhigan in xeerarkan aad aqbashay. meeshaas waa inaad check saarto, kadib waxaad ku dhufanaysaa isdiiwaan geli meeshay ku qoran tahay. haddii aad isdiiwaan geliso oo waxba aysan kaa qaldanayn, pagekan waa ka gudbaysaa. laakiin haddii uu kugu soo celiyo waxaad samaynaysaa kusoo laabo pageka hal mar, sidaas u wad gebigiisba fiiri mid ka mid ah oo calaamad guduuda ay saaran tahay. tusaale ahaan hadda haddaan dhaho samee, calaamad guduuda ayuu ii saarayaa meelo badan. muxuu yidhi userkaaga hore ayaa loo qaatay. userka waa liigu haystaa. waxaa kaloo jira meelahaas guduudka saaran yahay oo dhan qaladaa ka jira, waa inaan saxa ama waa iloobay ama qaladaa ka jira. markii inta aad samayso isla markiiba emailkii aad ku samaysay ayaan waxaan ku diraynaa email kale. marka emailka aad furto waxaa kaaga horeeya waraaqdan ayaa kaaga horeysa oo sidan u qoran. waraaqda haddii aad ka weyso inboxka inta badan waxay gashaa meelaha kale ay galaysaa, ka baar. waraaqdan waxaa ku qoran sidaasay u qoran tahay. waraaqdan waxaa ku jira userkii aad samaysatay iyo passwordkii aad samaysatay. inta badan passwordkuna wuu kaa qarsan yahay. meesha ugu muhiimsan oo akoonkaaga aad ku active garayn karto oo haddii aadan dhag siinin waxba aysan ku kala soconaynin waa meeshaas fartaas buluuga ah. fartaas buluuga ah oo emailka ugu horeeya la socota ayaad kilik korkeeda ku siinaysaa, markaasna hore wuxuu kaa geynayaa akoonkaagi. intaas ayaan rabaa inaan kusoo koobo qaybtan sida loo samaysta ah. intaanan ka bixin aan mid kale kaaga sii faa'iideeyo. hoos website-ka hoostiisa markaad timaado meesha u hooseysa waxaa ku jira calaamada wadamada ku jira, wadan kasta calankiisa. aan ka bilaabo dhinacan gacanta bidix, Norway, waxaa ku xiga calankeena Soomaaliya, waxaa ku xiga calanka Sacuudiga oo ah af Carabi, waxaa ku xiga qaybta mid walba marka kor saarto waxa ku soo baxaya Englishka, calanka Mareykanka, waxaa ku xiga Talyaani, waxaa ku sii xiga calanka Sweden. marka luqadii aad taqaano ayaad ka dooranaysaa. tusaale ahaan haddii aan Swedish ku dhufto website-ka dhan wuxuu isku bedelayaa Swedish. qaybta kore markaa fiiriso waa ujeedaa qoraalada oo dhan waxay isku bedeleen Swedish, ilaa marka laga reebo qoraalo gaar ah. moogi inta badan waxay taasi kaa caawinaysaa in haddii luqadda aad ku fiican tahay aad ku fahanto. marka intaan dib dambe u kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.